السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ilaahay baan ku mahadinaynaa salaada maqrib jamaca inaga soo qayb geliyey. waa nicmo ilaahayna siiyey inaan ilaahay ugu mahadnaqno weeyaan. wain tacuduu nicmata allaahi laa tuxsuuhaa ina alinsaana ladaluumun kafaar baa ilaahay yidhi. ilaahay casa wajalla nicamtiisa haddaan isnidhaana tiriyo tiro ku soo kooba ma soo koobi karayno. halka insaankan uu yahay daluum, mid naftiisana dulmiyey oo dulmi geysto badan, kafaara oo ilaahay nicamtiisiina qariyey oo daboolay. wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuhaa waina allaha lagafuuru raxiim. waa laba aayadood. labada aayadood inta hore waa isku macno weeyaan, laakiin inta dambe waa kala macnahooga waa kala duwan yahay. aayadda hore wuxuu ilaahay ku sheegay insaanka ayaa la sifeeyey. waa daluum, waa mid dulmi geysto badan oo naftiisii dulmiyey, oo xaqii naftiisu ay lahayd garan waayey, xaqii ilaahay ku lahaana garan waayey, xuquuqda bini aadankana garan waayey. dulmi geysto badana weeyaan. waa kafaar weeyaanoo ilaahay casa wajalla nicamtiisiina uu qariyey oo uu daboolay. halkii nicmadda loogu talagalay taacadda ilaahay in loo adeegsadana insaanka badankii nicamta ilaahay waxay u adeegsadaan cisyaanka ilaahay. aayaddaasi waa sidaa weeyaan tarjamadeeda luqada soomaaliga ah. aayadda labaadna waxa weeyaan waa tii ku taallay suuratu naxl: wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuhaa waina allaha lagafuuru raxiim. ilaahay nicamtiisa haddaad tiraadaan tiro ku soo kooba baa ilaahay yidhi, ma soo koobi karaysaan. laakiin allaha ini uumay ee iska kiin leh waa dhaafid badana naxariis badan weeyaan. halka horena waxaa la yidhi insaankaa la sifeeyey oo sifaadka insaanku ay leeyihiin baa la sheegay. aayaddan dambena wuxuu ilaahay sheegay sifaadka ilaahay baa lagu caddeeyey. oo waxaa lagu leeyahay haddaad adigu aad tahay daluum, dulmi geysto badane, ilaahay nicmadiisana inkiray oo daboolay haddii aad tahay haquusan, halka rabbigaana uu yahay dhaafid badane naxariis badan weeyaan. isaguna rabbiga allaha ku leh ee noloshaad haysata kugu deeqay, ee inaad dhimanaysana kugu xakumay, ee meelaad uga baxsatana aynan jirin, naxariistiisa marna ha ka quusan. waayo adigu daluum kafaara haddaad tahay, isaguna waa gafuuru raxiim weeyaan. gafuur dhaafid badana weeyaan. dembi kastoo dadku ay galaan hadday ka soo noqdaan waa ka dhaafaa. waa naxariis badane oo naxariistiisu waa waasic. waraxmatii wasicat kulla shay. ilaahay baa hi naxariistayda ayaa wax waliba ka ballaadhatay baa ilaahay yidhi. xadiis alqudsina ilaahay waa kii lahaa: ina raxmatii taglibu gadabii. naxariistayda ayaa ka qaalib noqoto ka adkaatay baa ilaahay yidhi cadhadayda.
walka ilaahay naxariistiisa waan u baahanahay inuu inoo dambi dhaafana waan u baahanahay inuu inoo naxariisto waan u baahanahay allah inoo dambi dhaafo allahna inoo naxariisto marka naxariista ilaahay caza wajalla ayaanu masjidka ku soo galay ilaahay waa inoo nicmeeyey waxaan isku baraarujinaynaa ee ugu horeeya waxa weeyaan waa alla ka cabsi inaan ilaahay ka baqno ilaahay cabsidiisu waa dardaaranka ilaahay jalla wacalaa ummadihii naga horeeyey oo kula dardaarmay innakana laynagala dardaarmi weeyaan في سورة النساء إلهي وكيلها ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إلى آخر الآية إنك يكوي إنكو الرئيه إلى الكتاب كي ديمها أنسو دجني انت بوحن كلا دردارني با إلهي يري إن دتو إلهي أبو رأيك بقان إلهي كعب صدان taqwaduna macnaha ugu yaray culimada islaamku ay saareen waxa weeyaan wixii macruuf ilaahay ku fareen la kaalay wixii munkar ilaahay jalla wa ala iyo sharcigiisu ay ka joojiyeen ka joogso ilaahay nicmadiisa ha u adeegsan maaragtaan cisyaanka ilaahay ee nicmada ilaahay waxaad u adeegsataa ilaahay wanaaga uu ku faray oo waliba wanaaga ilaahay uu ku faray waa waxayna ka danteena weeyaan ilaahay marka uu ina leeyahay salaada tukada salaadu waa adiga dantaada ilaahay marka uu ina leeyahay aniga ay aamino in rumaysta iimaankaasi waa adiga dantaada ilaahay azza wa jalla marka uu ina leeyahay masaajida ku soo xidhnaado kaalaya waa wax adiga dantaada lagu sheegaya adiga faqiira ayuha al-insaan adiga faqiira asagu waa qani ilaahay adiga daciif oo taageer أسقو سوى قوي القوي وإله عز وجل أدقو مخلوق باتهي أسقو نواكيكو أبو رتيسك كالها بركة إلهي نحريستي سمرنا كمار بمينو دادتك أردن إلهي ودا عابدان وحبي إلهي ومبيرنا يان هذا إلهي ودا عاصيان وحبي إلهي كمان ناقص ميان إلهي وغني استحيوا من الله حق الحياة نبي صلى الله عليه وسلم وكيلها إلهي عز وجل كحشود أبو نبي قولي حشودك إلهي حق أولها إنات كحشوتان أبو نبي قولي كحشود إلهي صحابة وحيد عدين يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله رسولك إلهي يو أنك إلهي وأنه كحشونا إلهينا وانقوم مهنقنا بصحابة ولادين إلهينا وكحشونا دادك الله لها إلهي كحشودا ماها إنك أوكليا ومقالة هذا الكا لقولها أنا مقالة إنن ماها مقالة هذا الكا وكدح لها نبق ومدينة المنورة دادك إريادا ونبق كلها أنا وأصحابتي سيويان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ودادك القرآن كالصفات كوغي وناكسنا الله شاقي ayakoo adduunka dusheeda socdana la yiri ilaahay baa raali inaga noqday ninka waa dadku nabi maxamed uu ku leeyahay istahyu min allahi haqq alhaya ilaahay ka xishooda buu nabigu calayhi salaatu wasalaam xishoodka ilaahay jalla wa ala uu inagu lahaa inaad xaqnimo uga xishootaan uga xishooda buu rasuulku yiri dadna saxaabadu waxay yiraahdeen yaa rasuul allah ilaahay waan ka xishoonaa ilaahay waanan ku xamdinaa ilaahay oo ilaahayna waan ugu mahadinaynaa bay yiraahdeen asxaabtu markaa buu nabigu macneeyay xishoodka ilaahay jalla wa ala la doonayo adoonku inuu ka xishoodo waxa weeyaan madaxa iyo wixii uu weeleeyay inaad ilaalisid caloosh iyo hareerahiga wixii ahaadana inaad ilaalisid inaad aakhirada aad xasuusatid oo qabriga balaayada kugu sugaysa iyo fitanta qabriga kugu sugaysa inaad xasuusatid waman araada al-aakhirata taraka zinata ad-dunya qofka aakhirada doona buu nabigu leeyahay adduunyada ziinadeeda iyo quruxdeeda iyo birbirkeega uu ka tagaa buu rasuulku yiri an tahfaz ar-ra's wa ma hawa an tahfaz ar-ra's madaxa inaad ilaalisid madaxa maxaa ku yaala xubnaha jir bini aadanku ay leeyihiin xubnaha ugu qiimo badan baa madaxa ku yaala aragii baa ku yaala araga ilaahay ku siiye kaga xisho maqalkii baa ku yaala maqalka ilaahay kaga xisho
carabkii baa ku yaalla carabkaaga markaad hadlaysa hadalkaaga ilaahay kaga xisho maskaxdii baa ku taalla caqligaaga ilaahay ku abuuray kaga xisho waa inaad ilaalisaa xubnahaas waa xubno muhiima ilaahay baa ku siiyo kugu deeqay inuu kaa qaadanayo ilaahay waa karay ogow ilaahay uu karaa dad badan oo maanta adduunka dusheeda inagula nool waxaad arkaysaa nicamtaasoo dhan waxay u adeegsanayaan ilaahay inay ku caasiyaan araggii waxay u adeegsadeen ilaahay inay ku caasiyaanoo waxa uusan ilaahay raalli ka ahayn bay ku eegayaan maqalkii waxay u adeegsadeen qaarkeen waxau ilaahay raalli ka ahayn bay ku dhagaysanayaan hadalkii waxay u adeegsadeen hadalla ilaahay uu raalli ku ahayn bay ku hadlayaan waxay nicmad ay haysteen oo dhan waxaa laga yaabaa inay u adeegsadeen ilaahay caza wajalla cisyaankiisii ilaahayna waxa uu nagula socdaa innaka waa dulqaadkiisa weeyaan ilaahay muxuu nagula dhaqmaa yaa dulqaadkiisa uu karay ilaahay dadka hadday aragga ku caasiyaan aragga inuu hal habeen ka qaado ilaahay waa karaa ilaa dadka u badan maanta mujtamaceennu waxaa laga yaabaa inaan indhaheenna inta badan aan ku eegna wuxuusan ilaahay raalli ka ahayn haddana waagii markuu barya waxaad soo kacaysa adigoo iska indho qaba waxaa laga yaabaa maqalka inaad u adeegsatid waxuusan ilaahay jalla wacalaa uusan raalli ka ahayn haddana waxaad soo kacaysaa adoo haddana maqalkii uu kuu shaqaynaayo qul ara'aytum in akhada allahu samcakum وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به إلى آخر الآية بل كورما با إلهين ليهي نبي محمد عليه الصلاة والسلام با إلهي كيري أشيك بني آدم كواحد كتر هذا إلهي جل وعلا أو كراي هدو أرق إني قلتكو ومقلك إني قادو وقلوبتي إن إلهي طابعو غفلو أي إني قصو قادكر إلهي نعمة داس uu karaa ilaahay hal mar kaliya dadka inuu araga kala tago ilaahay waa karaa oo magaalada waagu uu bariyo dadka 180 wada indhoolayaal yaa ku adeegi yaa dhariga ku karin xanuunkii kaduudiyaha ahaa ee dadka jajabinayay ayaa reer buu ku dhacay odaygii buu ku dhacay islaantii buu ku dhacay inantii buu ku dhacay shaaqiyadii buu ku dhacay tuug baa u soo dhacay reerkii oo wada kici kari la ayaguna wax biyo u soo dhaamiyay doonayaan islaantii baa aragtay tuug aqalkii alaabta guranaya markaa bay tiri hooyo waxa doonta iska guro biyaha waraabi bay ku tiri waa kaduudiye waa xanuun halis weyn ilaahay hay naga hayo aamin dhahada waa dhaweedu Jabuuti soo maro dadku aqaladii ka bixi kari waayeen xubnihii ba shaqayn waayay markaas uu qofku noqdo caag gebigiisa caag meel fadhiya oo waliba xanuunsan oo la xawsan oo dhaqaaqi kareyn markaas tuugi ba madad laga dalbay madad iyo gargaar oo leeyahay bal noo gurmo oo waxa doonta iska qaado oo bal ma aragtayna biyana waraabi markaas uu ka naxay baa leeyahay isagii baa ilaahay qalbigiisa naxariis soo galiyay wuxuu war kuwan hadaad wax ka qaadato aday balaayadu kugu dhiciye bal biyaha iska waraabi biyihii buu waraabiyay kii baytalmayga dooniyo baytalmayga geeyay jaarkii buu tago wuxuu ku yiri war dadka xaafadan kaduudiya ku dhacay u gurmado wax u qabto cid dariga u karisa u diray buu anigu waa ka tagay bal ka warama ilaahay tabaaraka wa taala maqalka haduu dadka ka wada qaado habeen kaliya laakiin inta badan dadku maanta maqalkii waxaan u adeegsanaa wuxuusan ilaahay raalli ka ahayn aragii waxa loo adeegsaday inta badan waxuusan ilaahay raalli ka ahayn carabkeeni waxaan ku hadlaynaa waxuusan ilaahay raalli ka ahayn waliba waa ilowsanahay aalaadkan inagu rakiban inay kamera ay leeyihiin wax duubayaan oo maalinka qiyaamaha ay warrami doonaan banka qiyaamana dadka inta badan maanta way ilowsan yihiin ishan dhinacna waxna waad ku eegaysaa iyada laftigeegu waxbay duubaysaa ee la soco sida waxaan iminka adigu soo jeedinsanay wax wada duubayaan hadhow tala la soo bixi waad furi doontaa ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون مالك قيامها وحي إلهي ونوغو الشيقي أعداد إلهي عز وجل ذاتك أدوية دوشيد إنتي جوغين أعداد إلهي أها بانك قيامة أيا الله سوجو جندونا
oo la keeni doona iyagoo malaa'igtu xagga dambe ay ka garaacayso markaasaa ilaahay yidhi marka banka qiyaamo la keeno waxaa maraga ku buuxini doona araggoogii iyo maqalkoogii iyo jidhkoogii markaasaa ayay odhan doonaan ayaa banka qiyaamo markay ka dhaqaaqaan naarta lagu wada tuuro ee afka ku hadlayeenna loo furo ayay odhan doonaan maxaad noogu markhaati furteen oo maraga aad noogu buuxiseen annagu ininkaani qarinayno asturayne markaa gacantiiyo lugtii ayaa dibintay u hadasho odhanaysa iyo dhegtiiyo ishiibaa hadlayso odhanaysa annagu iskamaanu hadlin maanu hadli jirino waadna ogeydeene ka wax waliba ka hadliyaa maanta laga hadliyey bay odhanayaan taas waa kuma allahu rabbulcaalamiin ilaahay baa ka dhawaajiyey marka horena isagaa ina sameeyo ina abuuray isagana xaggiisa waad u soo noqoteen marka xishood ilaahay oo dhab looga xishooda wuxuu nabigu ku macneeyay calayhi salaatu wasalaam madaxaya wixii uu hareereeyey ee ku yaalla in la ilaaliyo oo laga ilaaliyo maaragtaana ilaahay cisyaankiisa caloosha iyo wixii hareeraheega waa maxay calooshaada inaad maaragtaane mar walba aad ka ilaalisaa luqmad xaaraana khaasatan maanta masaajidkeennan suuqii ganacsiga ayuu ku dhex yaallaa laakiin waxaan xasuusinayaa maqaaladii abi bakrin sidiiq radia allahu canhu uu yidhi kunnaa nadacu 70 baaban min alxalaali makhaafatan min alxaraam an nudrikahu makhaafatan an yudrikana alxaraam wuxuu yidhi abi bakrin sidiiq 70 albaab oo 70ka albaab kasbigoodu uu yahay xalaal ayaan uga tagaynay buu yidhi annagoo ka baqayna halkaa xaaraan inay naga soo gasho wax walba caloosha ku rid maaha halkaa waxaad marinayso waa inuu ahaadaa wax xalaala haddaad xalaal cune aad noqoto caabid baad noqonaysaa kun warican takun caabidan buu yidhi abaa hurayra radia allahu canhu waxaad noqotaa qof xalaal mirta ah oo xalaal cuno aan noqo dadka ninka ugu cibaado fiican baad noqoniye waa qowlkii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ee ahaa ittaqi almaxaarima takun acbada annaas wixii ilaahay kaa xarimay oo dhan ka dheerow dadka qofka ugu cibaado suuban ee ugu cibaado fiican baad noqonaysaaye caabidnimadu ma aha sida loo kala salaad badan yahay maaha sida loo kala soom badan yahay maaha sida loo kala quraan akhris badan yahay maaha sida loo kala xaj badan yahay maaha sida loo kala cimro badan yahay bal caabidnimadu waxa weeyaan waa sida loo kala waracsan yahay weeyaan warac inaad ahaato qof xalaal mirta ah 70 kasbi oo 70kuba ay xalaal ay yihiin ayuu abubakar sidiiq wuxuu leeyahay ayaan iska dhaafaynay annagoo ka baqayna meeshaasi xaaraan inay naga soo gasho annagoo ka baqayna caloosha ilaali oo xaaraanta ka ilaali oo xaqanaaska ka ilaali xasaan ibn abi sulaymaan salafu haadihi lumma buu ka mid ahaa waa ninka la yidhi 60 sannadood dhinaca dhulka ma dhigin hadduu jiifanayo fadhigu ku seexanayay 60kaa sannadood neef shilis intuu gowracday cadkiisa ma cunin 60kaa sannadood biyo macaano naftu ay doonta ma siinayn cuntadana cuntada engegsan ee bilaa dufanka ayuu cunayay hurdadana fadhiga ayuu ku seexanayay biyahana biyaha baylkee kulul ayuu cabbi jiray maalintuu dhintayna waxaa lagu arkay manaan baa lagu arkoo lagu yidhi yaa xasaan maa facala allaahu bika nin wanaag iyo khayr lagu arko lagu yaqaano oo khayr lagu tuhmaya ayaad ahayde rabbigaa maxaad kala kulantay bal noo sheeg markaa yidhu rabbigay khayr baan kala kulmay laakiin waan xabisanoo jannadii ma geline albaabkii jannadaa laygu hayaa buu yidhi weli ma gelin jannadii markaasaa lagu yidhi maxaa jannada aad u geli weyday oo lagaaga hayo oo lagaaga xabisay bal noo sheeg wuxuu yidhi aqalka dariskayga ah ayaan ibradda maaragtaane warqadaha kutubta marka qoro kutubta markaan aan sannifo warqadaha kutubta irbaddan ku qoraayay ayaan jaarkayga ka soo qaato ka soo caariyaystay anoo aanan celin ayay naftu iga baxday xaq bini aadan intaabaa i soo gashay intaabaana jannadii laygaga xabiso albaabka jannada laygu hayaa buu yidhi waa irbad yar ayaa jannadii looga xabaasay ninka caabidka ahaa ee 60 sano salaata leyl aanan ka tegin jiif dhinacana dhulka aanan dhigin
hadduu seexanaya baa la yidhi ama gidaar ama derbi buu ku tiirsanayey oo tiir buu ku tiirsanayey ama fadhiga tarabbuca la yidhaha buu ku seexanayay baa la yidhi irbad yar baa loo xabisay oo jannadii looga xeeyey marka ayuha almuslim khusuusan ayuha taajir ayuha almuslim xaquuqda bini aadamka aan iska ilaalino nabiga sala allahu calayhi wasalam ghazawaadkiisii ghaswad ka mid a inay uxud ahayd baan u malaynayaa ayaa saxaabadu yidhahdeen ninkaasi waa shahiid waa shahiid waa shahiid markaa buu nabigu yihi kallaa innii ra'aytuhu fi nnaar buu nabigu yihi kallaa inuu janno galo oo uu shahiid noqdo iska daaye asagoo naarta ku jiraan arkay buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam naarta ayuu ku jiray oo lay tusay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa ninka dagaalkii balaayuu ahaa xagga dagaalka oo gaalo badan buu laayey oo saxaabada agtooda shahiid buu ahaa janno galay oo shuhadada waad garanaysaan walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili illah bal axyaaun cinda rabbihim yurzaquun ilaa aakhir alaayaat ayaa ilaahay ku sheegoo la yidhi inay dhinteen ha u malaynina maxaa yeelay shahiidka gaalada gacantooda ku dhintay ee dagaalka jihaadka dhexdiisa ku dhintay waxa uu arwaaxdiisu ilaah agtiisay taalla ah kaabuu nebi maxamed uu leeyahay may shahiid maaha hadduu xaggiina shahiid ka qoran yahay xaggayga waa ahla naar buu nebigu yidhi naarta ayaan ku arkay isagoo ku jira waa la baadhay ninkaa dharkiisii iyo badeecaddiisii baa la baadhay xoolaha muslimiintu ay soo khaniimaysteen waxay ahayd nebiga in loo keeno oo nebigu si cadaalad leh uu dadka muslimiinta uu ugu qaybiyo ayay ahayd inta aan nebiga loo keenin ee qismaddii nebigu aynan dhicin ayuu go'ii u fiicnaa buu kala hadhay oo gogashiisa ayuu ku dhex ritay intaasuu naar ku galay baa la yidhi ninkaas intaa buu naar ku mutaystay xaqa ilaahay uu kugu leeyahay hadduu doono ilaahay uu kugu cadaabi hadduu ilaahay doono uu kaa dhaafi karaa laakiin xaqa bini aadanka inaad celisid mooyaane ilaahay dhaafi maaya baa la yidhi marka ilaahay tabaaraka wa tacaala hanu soo noqono hanu toobadkeenno ilaahay ku saliya rasuulka waa iska wada duubaysaan adiga laftigaagu khayr baa ku dhaafaya iska dhegayso insha allah dadka baaladana lagu imtixaamay maryahan waa dhowatana anoo nool bay igu yidhahdeen uu dhintay marka waan maqlay laakiin aniga aakhiradii unbay sii xasuusiyeen iyakana ilaahay ha u dambi dhaafo aamiin dhahda dhallinyarnimada alla gashay allah annaga xaggeega waa cafis ilaahayna ha u dambi dhaafo allahu akbar zamankan waa cajiib weeyaan caloosha iyo hareerahayga wixii ahaaday waa in la ilaaliyo man yadman lii maa bayna laxyayhi wamaa bayna rijlayhi adman lahu ljanna buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ayaa ii damaano qaadaya buu nebigu yihi ii ballan qaadi oo ila ballami oo ilaalinaya buu nebigu leeyahay labada daan dhexdooda wixii ahaaday waa carabkaa yar ayaa ilaalin labada lugood dhexdooda wixii ahaadayna waa farjiga labada ayaa ilaalin buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam oon aniguna janno ugu ballan qaadaa ballankaa nebi maxamed baa inoo qaaday ma ilaalinaa insha allah dhahada majmuciin oo dhallinyaraad u badan tihiin haddii aad labadaa haddaad ilaalisid carabkana waxaa lagu dabraa waa dikriga ilaahay farjigaagana waxaa lagu dabraa maaragtaan imaa waa soonka badso imaa guur xalaala iska guursa arsaaqada ilahay baa ku siinaye carabka maxaa lagu dabraa ya laa yazaalu lisaanuka radbun bidikri illah carabka waxaa lagu dabraa ilaahay xuskiisa istikfaarta badi dikriga ilaahay badi dacwadda ka shaqeeyo dhallinyarada da'daada ah salaadiyo maskiidka khayrka ugu yeedh farjigana waxaa lagu dabraa ayuu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam isagoo dhallinyarada la hadlaaya yaa macshara ashabaab man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj yaa ururka dhallinyarada isagoo nebigu baaq u diraya ayuu leeyahay
ururka dhalinyaradu nebigu la hadlo wuxuu yidhi ninkii karaya inuu guurso buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. qofku markuu guursado diintiisii kala badh buu soo gaadhay, kala badhka kalena ilaahay ha ka baqa buu nebigu xadiis kale ku yidhi. guurkaas farjigaagana uu kuu ilaalinayaa, indhahaagana uu kuu xafidayaa. haddaad karayn oo awooddii lagu guursanaya maanta aanad haysaninna waxaad ku dadaashaa maaragtaanay soonka buu nebigu yidhi badso. isniintiiyo khamiistaa la soomaa, ayaamalbiidkaa la soomaa. soonku waa tarbiyad weeyaan, yukasir ashahwa. caaisha radia allaahu canha waa tii odhan jirtay bidcadii ugu horraysay ummadda nebi maxamed ku dhacday nebiga dabadii waa dharagga bay tihi, waa dharagga. qoom markay dhargaan ee caloosha ay buuxiyaan way shishlaadaanoo jidhkooga ayaa cayila, shahwadooduna way kacdaa, daadna way qooqdaa oo shahwadooda ayaa kacda, yaqiintooduna way daciiftaa bay tidhi. dharagga badan shahwadda ayuu kiciyaa, gaajaduna shahwadda way jebisaa. lidaalika soonku waa cilaaj weeyaan. shahawaadkaaga waxa jebinaya waa soonka weeyaan. wa ilaa haddaad zawaajka karaysa inaad guursatidna guurka ilaahay baa inoo fudaydiyey, iska guursada oo guurso gabadha diinta la guurso. teed guursan ta quruxda badan leh may ha eegin. fadfir bidaata diin taribad yadaaka buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. qurux ha eegin, nasab ha eegin, dhaqaale ha eegin. dhaqaale ha ku qaadan, quruxna ha ku qaadan, reerna ha ku qaadan. haddaad saddexdaa gabadha aad guurkaaga asaas aad uga dhigtaa waad ku lugooday ogow. waxaad qaadataa buu nebigu leeyahy gabadha diinta la qaado. anas binu camaar alasmaci ayaa loo yeedhay, aabbihii baa u yeedho ku yidhi galabta caroos baa tahee soo maydho diyaargarow baa lagu yidhi. waa nin dhallinyaro ah oo qurux badan. beriga dhallinyaradu ma haasaaweyn, iminka inagu waa iska haasawdaaye. zamanka dhallinyaradu waa balaaya adduunyada ka dilaacday. dadku beriga way asturnaayeenoo inankuna dadkiisu waalidka unbuu ka warsugaayey, inantuna waalidadeeda unbay ka warsugaysay. markaasuu ku yidhi aabbo inan baan kuu soo hello caroos baa tahee caqdigiina iminkaan samaynaynaaye soo diyaargarow oo dharkaa soo xidho. dharkiibuu soo xidhay, qaadigii baa yimid oo gabadhii waa la bixiyo, ehelkeediina way joogaan. caqdigii baa dhacay, isla habeenkiiba gabadhii waa loo wareejiyey. qolkii gabadha caroosaddu ay ku jirtay markuu u soo galay waxay noqotay gabadh yaroo kuusan oo isaga aanan cajabin. isagu laakiin waa nin dheer oo cad oo qurux badan maasha allah. iyadii laakiin waxay noqotay tu yar oo gaaban oo yar kuusan oo isaga aanan cajabin. ilaa daa'iman dhallinyaradu maxay jecel yihiin ya gabadhaha dhallinyaradu maanta ay jecel yihiin waa gabadh uu doonaya sida isagu uu doonayo in loogu abuuro. markuu galay buu arkay gabadhii, iyaduna way ku faraxdeen ninka quruxdiisa iyo suuraddiisa iyo isagii laakiin ma cajabin. markaabay ku tidhi hanixin bay ku tidhi, ha murgin, khayr baa laga yaabaa ilaahay inuu ikaa soo dhex mariye, ha murugoon bay ku tidhi. markaasuu hadalkeygii buu ku farxo, wuxuu is yidhi kollay hooyadaa iyo aabbahaa gabadhan waxay kuugu dooreen waa khayri ku og yihiine ilaahay casa wajalla taacadda waalidkaaga kugu hoojin maaye waalidkaaga iska adeeco, iska barakayso. habeenkii u horraysay u caroos galay ayaa ilaahay ducadii u aqbalo, caloosheediiba isla markiiba ilaahay ilmuu dhigay. ilmihii wuxuu noqday imaam maalik binu anas buu dhalay ninkaasi. imaam maalik binu anas. madhabkeena shaaficiga sheekheena imaam maxamed bin idriis ashaaficiyi raximahullah macallinkii uu cilm alxadiiska iyo kutubta uu ka bartay ayuu wiilkii yaraa dhalay baa la yidhi. wiilkii dhallinyarada ahaa wuxuu ku curtay imaam daar alhijra. imaam haddaad gabadha diinta la aad dooratid awlaad barakaysan oo culamaaya oo ilaa qiyaamaha adigana kuu soo ducaysa, ilaa qiyaamahana cilmigooga ummaddu ay intifaacsato ayaa ilaahay kuu soo dhex marinayaa. lidaalika farjigeenna waxaan ku ilaalinaynaa waa soonka iyo guurka xalaasha. carabkeennana waxaan ku ilaalinaynaa waa ilaahay dikrigiisa iyo maaragtaanay cibaadada iyo diinta. man yadman lii maa bayna laxyayhi wamaa bayna rijlayhi adman lahu ljanna. nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ayaa ii ka damaano qaadaya labadaa daan dhexdooda wixii ahaadoo carabka iyo labada lugood dhexdooda wixii ahaadoo farjiga ayaa labadaa ilaalin buu nebi maxamed uu leeyahay oon aniguna janno ugu ballan qaadaa.
marka qofka ilaahay ka xishoonaya waa inuu cawradiisa ilaaliyaa waa inuu carabkiisa ilaaliyaa waa inuu araggiisa ilaaliyaa waa inuu maqalkiisa ilaaliyaa waa inuu hadalkiisa ilaaliyaa waa inuu caqligiisa ilaaliyaa waman araada alaakhirata taraka ziinata addunya qofka aakhira doonkaa buu nebigu leeyahay ziinada adduunyada uu ka tagaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam aakhira doon haddaad tahay adduunyada ziinadeeda ma jeclaanaysid oo nabigeennaa diiday calayhi salaatu wasalaam adduunyada inagu adduunyada waan raadinaynaa walaakiin nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam adduunyadu nebi maxamed iyada ayaa raadinaysoo doondoonaysay waa loo bandhigay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam jibriil baa soo daadegay calayhi salaam nebigu samadu ka maqlay shanqadh yaa jibriil shanqadhaasi waa maxay waa malag buu yidhi waa malag albaab jannadu ay leedahayba albaab samadu ay leedahaa maanta la furay albaabkaa maanta ka hor lama furin buu nebigu yidhi jibriil malag baa ka soo degay malagaasi maanta ka hor allada ma iman buu nebiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa kan malag iyo salaam waa malag ilaahay soo diray maalinka intii ka horraysa malagaasi adduunka cagaha ma soo dhigin albaabka samada ku yaallee maalintaa la furayna maalintaa ka hor albaabkaa lama furin malagii baa nebiga salaamay calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi yaa muxamed rabbigaa baan salaan kaaga sidaa rabbulciza waxa uu ku leeyahay laba kala dooro ayaa laga yidhi laba kala dooro laba midkood qaado ana ajcaluka cabdan rasuula aw malikan rasuula laba mid kala dooro ma waxaan kaa dhignaa buu rabbigaa ku leeyahay boqor baan kaa dhignaa boqor adduunkao dhan la milki siiyey oo nebinimaduna u dheer tahay oo rasuula mise waxaan kaa dhignaa addoon ilaahay oo miskiina oo maalinna cunaaya maalinna qadaaya oo nebi oo rasuula labadaa kala doora baa nebiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam nebigu qaraarkii iyo go'aanka keligii ma qaadane waxa uu nebigu eegay saaxiibkii jibriil buu eegay saaxiibkii jibriil buu nebigu sidaa u eegay marka jibriil baa ku yidhi tawaadac lirabbika yaa muxamed rabbiga maadaamuu kuu bandhigay labadaa arrimood hee dhul isdhig sameeyo rabbiga dhulka isku dhig buuhi oo bimacnaa ta sarraysaha qaadane ta hoosaysa qaada baa lagu yidhi boqortooyada ay nebinimada boqortooyadu ay la socoto ha qaadan weeyaan ee waxaad qaadataa nebinimada maaragtaane miskiinnimada ku lifaaqsan labadaa qaada baa nebiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi ayuha almalak bal cabdan rasuula waxaan qaatay oon doortay inaan ahaado addoon ilaahay oo ergadiisii oo rasuulkiisii ah ziinada adduunyada nebigeennii baa ka tegay calayhi salaatu wasalaam adduunyadaan qaadan lahayn maanta adduunyadaa qalbigeenna ku weynaatay walaakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam tawaaduc baa lagu yidhi rabbigaa u tawaaducoo saaxiibkii jibriil calayhi salaam ayaa tilmaam cajiiba siiyo ku yidhi tawaadac lirabbika markaa buu nebigu yidhi addoon rasuula ha layga dhigo addoon rasuula waa maxay macnaheegu waa ka maalinna yidhi waan qadi oo maalintaa qadan ilaahay waan weydiisanayaa maalinna waxaan cuno ayaan helayaa maalintaan waxaan cuno helana ilaahay baan ku mahadin buu rasuulku yidhi aqaladiisa ayuu iman jiray salaada fajar markuu ka baxo waqt alishraaq caaisha radia allahu canha buu nebigu u tegi jiray wax la cuno la quuto aqalka ma yaallaan maya ya rasuula ma yaallaan markaa buu nebigu yidhi haye xabsuu u tagaaya umma almu'miniinay wax la cuno aqalkaaga maanta ma yaallaan oo ma haysaa maya rasuul allow biyo mahayna baad ma yaallo markaabuu umu salamu u tagaayey wax la cuna ma yaallaan maya ma yaallaan markaabuu nebigu odhan jiray iska badaaya waaba soomanahaye iska badaa waan soomanahay khalaas soonkiisu iska wadan jiray cuntada haddii la siiyana hadday cajabisana uu cunaayey hadday cajab gelin weydana uu ka kacayo nebigu mana ceebaynayn dhaliilna kama sheegayn waa hadiga nebigeenna calayhi salaatu wasalaam umma almu'miniin caaisha radia allaahu canha waa tii lahayd bil baad noo bilatay haddana bil labaad haddana bishii saddexaad waa 60 maalmood iyo 60 habeen ayaana soo maraysay tidhi aqalada nebi maxamed dari aan dab la saaray umma almu'miniin caaisha radia allaahu canha waxaa la weydiiyey
لحدن مالمود لحدن هبين هذه درجة دب أن لسارين ومحاد قوتني سنة تكون وليدين وعيتري لبدا مدمدوما هل عنين أنكم بيها يتمرتها بيها يتمر بالعنتكر دقو علوشاكو قبن ضبا كابح بريبان موقتها أنكم خارجين وجماعات اللغين هنا تمر بان سدن مركا جماعاتي وحيد هذا تمرتن وين عسليسسي وانا اللغو يا جماعات وان لغين مركا جيبوتي دحديده ودنك دحديده هي بري هوري markaasaan yidhaa timirtahan cunno mid baa ra'yi soo jeediyo wuxuu yidhi bal amiirow maanta waxaan jarrabaynaa timirta ha ku cashayno oo ha ku qureecanno oo ha ku qadayno oo bari dambana ha ku qureecanno oo bal han eegno markaasaan hay waayahay ma isku raacdeen ha waan isku raacnay bay way cuna timirtu markaa waa lagu qureecday biyaa la cabaa waa lagu qadeeyey haddana biyaa laga dabageeyey habeenkii markay gaadha jamaacadii nin walba wuxuu yidhi caloosha ululaysa amiirow ee raashinka noo kariya markaas xadiiskaasaan xasuusanay allahu akbar laba bilood ayay timir iyo biyo una cunayeen asxaabta rasuulku abaa hurayra radia allahu canhu ahlu sufihi masaajidka nabigeena deganaa buu ka mid ahaa ee masaajidka nebi maxamed ku ictikaafi jiray ee nebiga afkiisa wixii ka soo baxa weelayn jiray ee ummadda cilmiga u reebay buu ka mid ahaa dabaq timira nebiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam markaasuu u yeedhay fadaala yidhi yaa fadaala timirtan qaado ninkiiba laba timira sibuu nebigu ragga ahlu sufaha waa rag masaajidka nebiga gadaashiisay deganaayeen magaalada madiina qareen iyo qaraabana kumay lahayn hadiyadda nebiga loo keeno nebigu wax ka siin jiray sadaqadana iyo kaaba la siin jirayba abaa hurayra allah raalli ka noqday wuxuu yidhi xabad baan markaa ayaan muudmuudsaday xabadii kalena halkaa guntiga ayaan ku xidhay buu yidhi markaa buu nebigu i arkay calayhi salaatu wasalaam yaa abaa hurayra buu nebigu igu yidhi xabadda halkaa maxaad u gelisa ii sheeg wuxuu yidhi hooyadayba aqalka joogto ayadana xabaddan aan u geynoo quud ha ka dhigatay buu yidhi maanta inankana abaar baan sheeganaynaa oo noloshiiba adkaatay baan leenahay oo shaqo la'aan baa laga cabanayaa war shaqo la'aan ma jirte dhereg baa jira dhereg nicmadii intay naga badatay ayaa shukrigii baa yaraaday shukrigii dadka maanta inta dheregu uu dhibaayo iyo inta gaajadu ay dhibaysa caalamka yamaa badan ya dheregu inta u dhibayaa badan dhakhtarradaasoo dhan iyo farmasiyada weydiiya dokteerada waraysta dadka dokteerada u tagay iska daweeya ee xanuun ka cabanaya ma dadka fuqarada mise dadka maalqabeennada war dadka xanuunada ka cabanaya maalin walba farmasiga dawo uu ka iibsanayay ku sii socday ka soo guraya dawada ma dadka masaakiinta gaajoonaya wadooyinka seexdaba mise waa dadka waxay cunaan intay heleen cuntadii ka badatay bal ka jawaabade waa dadka dhargin weeyaan waliba inaga dhulkeena wali balaayayna ma soo garin waa nabad qabnaa جزيرة العرب هدا تكتانية ودنا أوروبا يقارضها دونك للي وهرومرين لقولي هاي داتكي وحا لو سميون لي أربابور تكدا دعو هدا العافمات ربطان اللغية هدا العافمات ربطان عتدى جوجية باللقولي عتدى يريا ريميغا يريميغال كمت قاع عافمات بدن سببته محيتها وعنتى يريا سعود بدني ريميغال كمحي لحنون بطين وعنايا وفريسانيا قعدتي أفكي بان كلا جوكسن واي لحوح بو صوعني وصوكعي بير بو عني وككعي كوبي طبعا كان هيلب جيل بو عني لبدنا حافظ وتجي وحيل لكريي بو عني هذانا قلبته وحوني هذانا عاو وحوني تضبا جرب وحوني ورما قال بعد نقطة قالها تضبا على الله وحكو عنته وما دحون عني سكورة سيد الله ده تعيش حياة التعايش معها النبي محمد ومضى وحو بري نبي الصحابة دي سوحو بري حياة المجاهدة وحاو نبي الصحابة دي سكو تربية دي عنتيران عنتد الله يريو إن عبادة الله بديو إنت عد الله كرديو إن الله اللو دوادو إن أدونك أويهي مال دتك من هذا كدقيسا أو أدونك الراحة أينن أولين سكي ما يسكدي دي أدوية دي ويري مي أنا وحان قاتين أنا هذا الدور رسوله
addoon rasuulu nebigu noqday inuu qaato calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu isagii loo bandhigay uu qaatay khiyaarkaa nebigu qaatay ayaa nebigu sal alla alay wasalam reerihiisiina waa u bandhigay nebigu xaasaskiisiibuu u bandhigay markii madiine loo soo hijrooday ee dhaqaalihii islaamku uu kobcay ayaa xaasaskii nebigu waxay ku guuxguuxeen ay ku yar dhexdooda hadal qaadeen in masaariifuu nebigu u sameeyo oo reer walba biil meel loo saaro ilaa waa la jihaadayey xoolaa la soo helayey xoolihii buu nebigu saxaabada u qaybinayey markaasay arkeen dhaqaalihii oo kobcaya iyo saxaabadii oo maaragtaan adduunyadoodii ay biirayso markaasay yidhahdeen dumarkii nebigu dhexdooday tashadeen nebigu haddeetoola biil ha noo sameeyo nebiga waa loo waxyoodo waxaa lagu yidhi dumarkaagii adduunyaa soo gashee ka hijiro baa lagu yidhi ka hijiro markaasuu ka hijrooday nebigu sala allahu alay wasalam reerihiisii magaaladii madiina waxaa gaadhay war cajiiba oo la leeyahay nebigu xaasaskiisii uu furayba abibakrin sidiiq ayaa u tegay inantiisa caaisha aabba nebigu muu ku furay maya ima furin de waa maxay waxaanaan maqlay waxay tihi nama furine laakiin uu naga hijrooday nebigu oo bil hareeraheed nooma iman nagama soo ag wareegin meelahaasuu nebigu iska seexdaa calayhi salaatu wasalaam masaajidka iyo meelahaabuu iska gogladaayu iska seexdaayoo nalama hadlo haddana cumar baa socday xafsuu u tagu yidhi ma lagu furay maya layma furin xaasaskiisa nebigu cid ma furay maya ma furin maxaa dhacay ii sheeg haddana waxay tidhi adduunyaan hadal qaadnayoo uu naga hijrooday nebigu markaasu arrintii baa nebiga markaa gaadhay markaa buu nebigu xaasaskiisa u yeedhay haddaba markay soo degeen aayaadkan ku yaalla suuratul axzaab aayaatu takhyiir ilaa isagiina kala dooraan laga yidhi xaasaskii nebi maxamedna waxaa la leeyahay ayakuna ha kala doortaan ilaaha iyo rasuulka iyo aakhirada oo dhinaca iyo adduunyadii zinadeeda oo dhinaca ha qaataan labadaa mid ha kala doortaan markaa buu nebigu ka bilaabay caaisha radia allaahu canha caaisha waatuu nebigu xaasaskiisa ugu jeclaa markaa buu nebigu caaisha u yeedhay caaisha kaalay buu yidhi soo fadhiiso aayaadkana dusheeda ku soo degay aayaadkaasina ininkay nagu socdaan ininka aswaaj annabiyi sala allahu calayhi wasalam radia allaahu canhunna markaasaa lagu yidhi waxaad kala dooranaysaa ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiree jannada oo dhinaca iyo adduunyada iyo zinadeeda oo dhinaca labadaa kala dooro haddaad adduunyada iyo zinadeeda aad dooratidna waan ku furayaa si fiicanna waan kuu furayaa xuquuq waxaad igu lahaydna waan ku siinayaa adduunyadaadana waa lagu furayaa markaas markaa buu nebigu ku yidhi weliba inan yar baa tahe go'aan qaadashada ha ku degdegine aabbaha abibakrin sidiiq iyo hooyada u tago arrinkaas waa arrin culus weeyaane keligaa go'aanka ha iska qaadanino ha ku boodine oradoo aabbaha ka talageli buu nebigu ku yidhi markaabay tidhi yaa rasuul allah ma ilaaha iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiro ayaan kala tashanayaa bay tidhi aabbahay haddaan go'aankayga qaatay waana kuu sheegayaa ee go'aankayga cidna ha iga sheegin ilaahay rasuulkiisii aakhire ayaan qaatay maanta intii ka dambaysana adduunyo dambe kugu hadal qaadi maayo bay ku tidhi markaa buu nebigu sala allahu calayh wasalam xaasaskiisiibuu mid mid ugu tegey uu u bandhigay sidii isaga malagu ugu bandhigay ayuu nebigu xaasaskiisiina ugu bandhigay mid walba waxay tidhi ilaahay rasuulkiisii aakhirada ayaan qaadanay ilaahay rasuulkiisii aakhirada ayaan qaadanay daadna maalinta intii ka dambaysay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadduu wax cunana way la cunayeen hadduu gaajoodana way la gaajoonayeen hadduu gaajo ku agseexdana way iska agseexanayeen hadduu wax gacanta geliyena gacanta way la gelinayeen waa nebi awood wuxuu ilaahay geliyey hadduu nebigu yidhahdo ilaahu dhagaxan dahab ka dhig ilaahay dahabka waa ka dhigi karaa gacantiisaa baraka lahayd bashiir ibnu caqraba radia allaahu canhu saxaabiga la odhan jiray isagoo yar buu ka sheekeeyey fii saxiix albukhaari aabbahay khaswadii buu u baxay jihaad mujaahidiintii buu raacay buu yidhi markaasaan magaalada madiina duleedkeygii baan istaagay markay ciidanku ay soo noqdeen aabbahay baan ciidankii ka dhex waayey buu yidhi markaasaa nebiga u imida calayhi salaatu wasalaam markaasaan is hortaaga yaa rasuul allah aabbahay mee waa kii ciidanka raacee maxaa ka reebay markaa buu nabigu iga jeestay markaa baan xagga kale istaagoon ku yidhi yaa rasuulallah aabbahay
ciidankan ula socdaa maxaa ka reebay markaasaan arkay nebiga innihiisa oo ilintu ay ka qubanayso markaasaan gartay aabbahay inuu shahiiday markaa buu nebigu kor ii qaado wuxuu igu yidhi yaa bashiir maanta laga bilaabaa miyaad raalli ku ahayn inuu nebi maxamedna kuu noqdo aabbaha oo kale caaishana ay ku noqoto hooyo markaasaan idhi radiitu yaa rasuul allah raalli baan noqday raalli markaasaan idhi nebi allow carab jabaqaan leehe ilaahay ii weydiiye carabkaa jabaqada le ilaahay inuu iga qaado markaa buu nebigu soo saara carabkaaga waa ugu tufay nebigu sala allahu calayh wasalam carab jabaqadii maalintiibaa ugu dambaysay madaxii buu nebigu gacanta u saaray ile agoon buu ahaa ma og tahay saxaabigaasi isagaa ka sheekayn doona 90 jir buu gaadhay daadiisu timahoo dhan baa caddaaday baa la yidhi walaakiin meeshii nebigu gacanta uu saaray bar madow bay noqotay baa la yidhi timihii waa madowgoodii nebiga karaamadda ilaahay uu siiyey ee jirhkiisa mucjizaadka ilaahay uu ka daahiriyey uu karayay nebigu inuu yidhaahdo ilaahow reerahaygu gaajooni maayaane diintaadaan ka shaqeeyaaye dhagaxdan dahab iiga dhig uu karaayey laakiin nebi maxamed waxaa la yidhi kala dooro adduunyada oo dhinaca iyo maaragtaana iyo diin boqortooyo iyo risaalad oo dhinaca iyo addoon inaad noqoto miskiina oo nebiga kala dooro deedna nebigu wuxuu qaatay inuu noqdo addoon rasuula inuu qaato dariiqaa buu nebigu innaka inoo jeexay marka adduunyada ha ka shaqaysan laguma leh laakiin ha jeclaan baa lagu leeyahay adduunyada innagu dadkeennu inna way ka shaqaysataayoo way ku mashquushay inna adduunye ma hayso laakiin adduunya way jeceshahay waxaanad haynin haddaad jeclaata ka warran soo waalima saxaabada rasuulka kuwii adduunyada haystay ayaa jeclaan waaya adduunyada kuwii adduunyada haystay may jeclaan daacadda ilaahay bay u isticmaalayeen adduunyadooda ninbaa u yimiday ninbuu u yimiday ansaariya waa nin ansaariya u yimiday qisaduna waxay ku taallaa kitaabu imaam axmed masnadkiisa wuxuu uhi beertayda geed timira oo beertaada ku yaallaan u baahana inaan ku tallaalee beertiisaa midha fiicnayd ee geed timira walaalisii markaa uhi ku siin maayo geed iigu bedel geed midhaha beertayda ku yaalla kuugu bedeli maayo buu ihi iska soco ninkii baa nebiga u sheegay sala allahu calayh wasalam walaalkay baan hal geedoo timira weydiisto uu isiini waaye nebi allow adigu ii weydii markaa buu nebigu ninkii u yeedhay reer madiina wuxuu ihi nebigaa ku yidhi waryaa geed timiroo beertaada ku yaalla oo xagga beerta hebel xiga markaa buu nebigu ihi sii markaa buu yaa rasuul allah ku siin maayo markaasuu nebigu ku yidhi bicniihi binakhlatin fi ljanna geed timira oo jannada ku yaalla beer timiroo jannada ku taalla haddana ku bedilo markaa buu ihi ku bedelan maayo iska aamusay markaa nebigu sal alla alay slam abu daxdax radia allaahu canhu oo meesha fadhiyey oo arrinkaa la socdoo maqlaayay ayaa ninkii iyuu u tago wuxuu ku yidhi anigoo geed timiroo beertaada ku yaallaan u baahanahe beertayda timirta intay la eg tahay oo dhan maygaga wada bedelan geedkaas inta beerteedu ay tahay oo dhan geed timiroo beertaada ku yaallaan ma ku bedelan war maad igu ciyaaraysaa wallahi ayna kugu ciyaarayn ee ma igu bedeli hawan kuugu bedeli kaale beertaydii la wareeg geed timiroo beertaada ku yaalla oo xagga walaalkay beertiisa xiga iigu bedel waa hagaaga qaado adiguna kaale beertii la soo wareeg abu daxdax uu soo socday islaantiisii iyo ubadkiisii oo beerta dhex jooga oo weliba aqalkuu deganaano uga dhisan yahay ayuu u qayliyo wuxuu ku yidhi ummu daxdaxey beertan ilaahay baan xaggiisa u xawilannay aakhiradan u xawilannee ka soo dhex baxo ciyaalka ka soo saar markaa bay ku tidhi iyadiina xawaaladda beerta aakhire aad noogu xawishay wallaahi waad ka macaashay bay ku tidhi dukaankaaga haddaad tidhahda islaantaada ku tidhahda dukaankii yaraahay masaariifta aan inooga qaadayay baan maskiidka ku wareejiyey may kaa yeelaysaa tolkaa bay kuugu yeedhaya kodhan u waashay xidhxidha dadku beriga rag iyo haween isku aragti bay haayeen dad meel keliya u jeeda bay ahaayeen dadkaasi ma kala jeedin ma kala socon way wada socdeen halka nebi maxamed u jeeday saxaabadu u jeedeen halka saxaabigu u jeedo
ayay islaantii ilmuhuna u jeedeen markaa bay tidhi waad ka macaashtay bay ku tiri maanta tijaaradda ilaahay adiga idin dhex martay waad ka macaashtay markaasuu abu daxdaax nebigu u yimid calayhi salaatu wasalaam yaa rasuulallah geedkii timirta ahaa ee hebel aad u doonaysay waan keenee geedkii timirtuu ninkii uu iska diiday ee jannada ku yaalla ii ballanqaad markaa buu nebigu ku yidhi kam min cidqin raddaaxin liabi daxdaaxin fi ljanna imisaa ilaahay u diyaariyey geeda timira oo intay midhihii bislaadeen ay noqdeen booshaamo ay noqdeen oo jannada ku yaalla ayaa ilaahay abu daxdaax u diyaariyey buu rasuulku yidhi geed timira oo jannada ku yaalla ninka loo ballan qaaday ma dhici karta isagu naar inuu galo yaa may isagu jannuu galayaa waayo ninka geed timira loo ballan qaaday bimacnaa isagu waa ahlaljanno markaa saxaabadu waxay haayeen indheergaratay haayeen war maxay haayeen indheergarad innaku indheergarad maxaa u taqaanaan kuwa hay-adaha la shaqeeya indheergarad iyo kuwa salaadna aan tukanaya siyaasadda ka hadla siyaasadda taariku salaa maqaaciduu fadhiisan habeen iyo maalin waxaan loo diran buu ka sheekayn wixii dantiisa ahaydna u iloobay kaabay soomaalidu u taqaanaa khabiir indheergarada indheergarad waa ninka naftiisa yaqaana waxa naftaada u wanaagsan waa inaad garataa waxa rabbiga u wanaagsan waa inaad garataa waxa reerkaaga u wanaagsan waa inaad garataa waxa dadkaaga u wanaagsan waa inaad garataa waxa dalkaaga u wanaagsan waa inaad garataa hantida dal uu leeyahay hantida ugu wanaagsana dal uu leeyahay waa dadkiisa indheergaradku waa ninka dadkiisa wanaajiya way dadkiisa ka shaqeeya indheergarad waa ninka dadka islaaxuga ka shaqeeya waa ninka diinta ummadda baraya waa macallinka qur-aanka dadka baraya waa daaciga ummadda dhex socda waa caalimka rabbaaniga ee miskiidka dhex fadhiya ee ummadda ilaahay ku xidhaya waa daaciga mutajawilka ee jawlaynaya ee tuulo miiga intuu reereer u dul tago dadka ilaahay ku xidhaya kaasaa indheergarada kaasaa mustaqbalka waddankiisa iyo mustaqbalka mujtamaciisa dhisaya oo ka shaqaynaya allah inuu dambe dhaaf salaadii cishaay baa la galay masaajidiinuna waa isku dhowdaho eedaankiina waan maqlaynay salaadiina waa la galay inuu diinta iyo dacwadda iyo khayrka ka shaqeeya u diyaar hadal murtidii insha allah dhahada inaad naftaada islaaxisaa indheergaradku aniga naftiisa waxay ku islaaxisa yaqaanaa indheergarduhu waxa weeyaan waa ninka reerkiisa qoyskiisa diinta iyo akhlaaqda wanaagsan ku tarbiyadeeya indheergaradku waxa weeyaan waa ninka mujtamaciisa dadka dalkiisa ku nool ilaahay rasuulkiisa ku soo xidhaya ee dadka hagaajinaya kaasaa indheergarada saxaabadu markaa indheergarad bay haayeen aakhiraday ku xisaabtamayeen adduunyada maba arkaynba adduunyada waxay u arkayeen inay tahay maaragtaane ku meel gaadh meel aakhirada daarteeda laga sii dhisanayay ku arkayeen marka insha allahu tacaala kuwa diintooda qabsada ee diintooda ka shaqeeya ee dacwadda iyo khayrka ummadda ugu yeedha ee naftoodana islaaxiya allah inaga dhigo insha allah soo diyaar ma nihin allah inagu anfaco haddii laynaga dalba diinta inaan waqti iyo dhaqaala ku bixinana soo diyaar ma nihin waida stunfirtum fanfiruu nabigeennaa yidhi haddii laynaga dalbo inaad diinta u baxdaan buu nebigu yidhi war diinta u baxa markaysa soo diyaariya insha allah habeen dambana jimco waa markaska kulankii diineed baa markaska ka jira ka soo qayb gala insha allah dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allah inoo macaaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mowtaadkeenna allaha u naxariisto amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo dad badan oo walaalaheenoo ducadoona ayaa jiray qof alli qofkii kurbaysan kurbada allaha ka qaado dhallinyarada guurdoonkana guur xalaala allaha siiyo gabdhaha guurdoonkana wiilal wanaagsan oo diin iyo dabeecad wanaagsan allaha ku hagaajiyo maciishadan cidhiidhiga allah inooga saaro muslimiinta qulubtoodana allaha mideeyo muwaafiqiin midnimana allaha ina siiyo shaqaale diinadoo la aqbala allaha inaga dhigo waalidiinteenna wixii dhintay xaq nagula allaha u naxariisto innakana allah inooga daba naxariisto sala allahu calaa nabiyina muxamed